wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa shacabka ku amaanay sida ay markasta heeganka ugu yihiin ilaalinta amniga Soomaaliland iyo sida ay ugu bisil yihiin in ay ka adkaystaan wax kasta oo waxyeelaya jiritaanka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliland sida uu warkani ku eegayo wariye Cali Caanadhame wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sidaasi ka sheegay harma sharafeed soo qaban qaabiyay xildhibaan Ali Mareexaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada taasi oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha shabakada wararka ee Burco Online oo sagaal ku joogay magaalada Hargeysa waan ku hambalyeynaya shacbiga Soomaaliland sidii uu u wajahay wixii yaraa iyo buuqii yaraa shirban la qabanaya iyo lama qabanayadii sidii uu wajahay shacbiga Soomaaliland u muujiyay in uu ka soo horjeedo wax kasta oo nabadgelyada iyo qarannimada Soomaaliland muran gelin kara ama shakiba gelin kara ama ruuxiba kara waxaana munaasabadaasi ka qayb galay oo kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cilmi Aadan wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga mudane Cabdullaahi Jaamac Ismaan Geeljire xubno ka tirsan golaha wakiilada maamul xigeenka magaalka caasimadda Hargeysa Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo مسؤولين كلام وسيلك وزارة الوفافنتا نقل وعيقلت جمهورية الصومال هذا الكلام كاسي كتشيدي وحاو قيس كلام وقصو تشيدي بهرة الصحافة إنه ما دام مرنكي خلافاتكي ودحيي أحسابتها قرنكا لصواب تري أي هاتن لقد بونتهاي سيدي أي أقود قلي لهايين إسو تشيدك برشدة يوكب عنتا قراتك برشدة ما دام أي صحافتها ما دو كان المهمة كله بسمها قرنكا iyo jiritaanka ummadnimo website mihnada aan dhaawac u geysan mihnada wax ku soo kordhiya ama website mas'uula inuu noqdo ilaa imika waan ku hambalyeynaya jaamac saxaafadda kalena waxaan ku hambalyeynaya iyagana muhiimadda ay doorka ay lahaayeen maalmahan dambe oo ah in mar haddii arrintii yaraa iyo khilaafkii yaraa u dhammaaday in ay khilaafka dhulka inaga dhigaan oo ay dadkii nabad iyo midnimada dib uga wada shaqeeyaan waxaan ku rajo weynahay inay tallaabadaasi ku dhaqaaqayaan oo ay u bisil yihiin Jaamac Cabdullaahi Biibe gudoomiyaha shabakada wararka ee Burco Online ayaa isaguna geestista waxa uu ka mahad celiyay soo dhaweyntaasi iyo martiqaadkaasi uu fidiyay xildhibaan Cali Xasan Maxamed isagoo oo sheegay in uu mujtamaca Soomaaliland ku bogaadinayo sida qiimaha leh ee muddadii uu joogay dalka loogu soo dhaweeyay waxaan aad ugu faraxsanahay sida wacan aad dadka qurba jooga iyo dadka bahda saxaafadda ku jira aad u dhiirigelisaan markastaba una soo dhaweysaan una maaragtay tustaan inaad tihiin dad ku xidhan saxaafadda iyo media warbaahinta aad bal inta inooga mahadnaqaya